guud ahaanba waxaa maanta si nabada oo xasilooni ku dheehanta looga ciiday deegaanada kala duwan ee gobolka Hawd. bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd ayaa subaxii hore saaka u dareeray tukashada salaada Ciidul Adha, waxaana tukashada salaada ciida kala qayb galay bulshada ku dhaqan magaalada Balligubadle, mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo. barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Cali Xasan ayaa bulshada reer Soomaaliland guud ahaanba ugu hambalyeeyay munaasabada Ciidul Adha, isla markaasina waxa uu bulshada ku dhaqan gobolka Hawd ka codsaday inay baabiyaan guud ahaanba seeraha sharci darrada ah. runtii oo seerihii dhulkii xidhnaa baabiyay aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa inaynu inaguna dabagelino. waanigi dhowr goor idinku yidhi war haybsanina oodaha waa la baabiyanayaa maalinu digreetadii madaxweynaha uu yidhi ku baabiya waanu haynaa, laakiin waxaanu sugaynaa amar dowladeed oo gobollada oo dhan mar laga wada bilaabo. dadka wixii eeru khayrna ha iska sii baneeyaan, ilaa waxa imika kuma yaalin waxbaa ku yaalla hadda lagu ilaaliyo waa gobol ciddaa sii baneyn karaya sii baneeyaan. gabagabadii waxaanu makarafoonka la dhex marnay shicibka ku dhaqan magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd, kuwaasi oo isugu hambalyeynayay farxadda munaasabada Ciidul Adha awgeed. dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland dhammaantood waxaa leeyahay ciid wanaagsan. waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan familigayga, carruurtayda, labadayda waalid, walaaladay, asxaabta iyo qaraabada meel kasta adduunka ka joogaan. waxaan leeyahay ciid wanaagsan. magacaygu waa Shaama Axmed Cali. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland. sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan familigayga, asxaabtayda. waxaan leeyahay kulli caam wa anta muslimiinta ku ciiday. waxaan ku ciidan iyo Ciidul anigoo joogo gobolka Balligubadle. waxaan leeyahay kulli caam ciid mubaarak, kulli caam wa anta bkhayr. maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle.